كايا كيري مطر كنسيي أبني كنسيي شرفت النسيي صومالي نغدقاي reerko balada dhexoo reer galmudug naga dhigay ilaaha baan ku mahadinayna marka koobaad ilaahaas amaad iskale marka labaad waxaan soo dhawaynayaa anoo ku hadlaya odayaalka dhaqanka ugaasiyada nabadoonnada salaadiinta kale bulshaweynta ummadda galmudug dhaqanka u ah afkooda anoo ku hadlayoo ka wakiila waxaan soo dhawaynayaa xildhibaanada galmudug oo meeshaan fadhiyoo sharaftahay guddiga farsamada iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka oo madaxdayadii casiiska ahayd culummada ahayd cadaaladda ahayd kitaabka ilaahay wax ku dhaqayay kitaabka ilaahay fiirinayay aayadda ilaahay fiirinayay guddiga oo noo soo magacaabaan soo dhawaynayna marka saddexaad guddiga la soo doortay la iskama soo dooran meesha la iskama keenin waa dadkii galmudug u dhashay waa dadkii burburkii soo joogay waa dadkii xaalad walba la socday waa dadkii meeshay ka jiran tahay yaqaana waa dadkii kalsoonida lagu qabay inayna khiyaano samaynayn inayna jeclaysi iyo gabar jeclaysi ayaan wax ku maamulayn inayna laaluush wax ku maamulayn inay aragti dheer iyo aragti dhowba leeyihiin dadkii lagu soo xodhay weye waa idin soo dhawaynaya صعبك أمرك وزاعد وحالينا إذن شيء يا أضيالك أنه iyo culumada rakamida ninka la yiraahdo maxamed axweynaha farmaajo hadda maalin markuu yiri waa u tagay waana la hadalay waxba una naga balqaa anagu waxaan niri laaluush kaama hadlo lacag kaama rabo jaga kaama rabo waxaan kaa rabnaa 18 gobol iyo 92 degmad dawladda Soomaaliya ku baaqba 18 gobol iyo 92 degmo gobolkan galmudug waxaan ahayn ee amni iyo shacab iyo ciidan iyo hub iyo dhismo iyo dhul bannaan oo dawladdu leedahay ugu wareejiya ma haysa maya waa hal xaafada u hayo hal xaafada iyo cid ku wareejiso Soomaaliya midna lama meel maxabad iyo qoriya laga horin sababta ah waxa ay yihiin aan ogyahay anagu waa ogay laakiin waxaan islahay ama Soomaali ama adduunyadu yay oran nimankaan waxay diidan yihiin dawladdiidu way wuxuu marka haddaad xoogii kala wareeg oo hubkii kala wareeg oo hantidii kala wareeg oo dawladnimadii kala wareeg waa caqofkeed saaran aad gitid ayadoo dawladdu u dhisantahay oo calan leedahay oo dastuur leedahay oo maamul leedahay oo madax leedahay oo xildhibaan leedahay oo wasiirro leedahay anta wixii oo dhan la baabi'iyey dawlad Soomaali jacayl iyo Soomaali jacayl gacanta la idinka saaray waddankan waa dulmidiin midida kale waxaa laydinku diiday oo laydinkula dagaalamaya dadka reer galmudug itus oo itaabsiin waxaan leeyahay itaabsiin waxaad iga rabtana itus ma maqle waxaan ku soo gaabinaya annagu weli waa samrayna qof kasta oo galmudug u dhasho
أما الدرجو أما بلجو ما شاطر تجو وقف كستو قلب تقول أشرب ضميره أو ضمن ماله أو إنه أما مستقبل كوحكنا أو مرحكنا أما إنه كجر أحسن الدنيا وإنتكنا حارتنا كتير تقلب إنتكنا تفرط بليا قدر حقيقة تصل إمارة ما لنا دوكها كفي سنين وحنكسر قبل هي هاتي كتا هي هاتي ندي الله لك ما كشف